dib igaga soo darsoomi doonto iyo inta hore ila joogtay dhammaantii waa idin mahad celinaya aad iyo aad u mahadsantihiin. lambarkan aan hadda haysto waxaa ka dhiman in yarba ka dhiman 50,000. waxaan rajaynayaa ciidda inaan u dabaaldego 50k insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي قال لي ما هو السلام أو لك شيء اسمه دوغ ولا سير بليز جراك تبع جسمس قرار نظر أرت فيديو قاعد هو فيديو تريدي كسو هذا أو يوتيوب كي قصاد دقي مركا كومنتي مركا آخرين فيديو كسو سماي كسو هذا سيد القول عيبة تريدين مركا سيد اللي إيه دعي مع رواينا هالكان عاو يقولوا وداقو سيد اللي إيه دعي أرتو أنا عاو استال مدينة جيفو أيا مقال كي جا واحد باهي راديو مستقبل منكم مقال كي جا باهي ومعلمها عندها وعمل أكتيدي بيد إستال مدينة جيفي لما كيقول مركا أو شاشته كسوقري مركا وحلاقة صوعي كسماية أرتا لمبر سوماليا جديدة ده صوعي هيو يورن ساوير كده وعادي ما هنوها هيو وحان جوجا ميل كسماية ودو ليرا عبد الدور مركا جاري أيام ربا ويل عن أوجدي ويل كينو أودي دي جاري بمركا وحيالو ميل ودو جاري وحيالي تري ميل ودو كل بيو وبعديه دراور كمان كوسو حرية مركا جاري عشان كوسية قاضو ويو ينسو الدعاء ما عن قدر غير الله كوسية هاي وغير الله كوسية هي أنا مركا حاجة تغرب فضيت كأجا بطة شو عيري دراور كي يسوي على واحد كبعدي وري ورا صاحب بساتها الحمد لله في أنا ما شاء الله ونيو ماما مخلصوا على شيء جاري كوسية سوا جاري كواني وأنا حي لكن جاري شيء كوميجرو maamadin meel baadiyaha ay joogtaa lacag EFC-na ma hayay dhahday marka saa waxaan yiri maamadana marka isbuuc ka bacdi aan magaalada tagay bay tiri anna gaariga inaan hadda waa diyaar baan ahaa hadda inaan soo boodaan rabi lahayba anna markaas waxaan siri waa diyaare waxaan yiri shid marka nin darawlo marka anagu waxaan ahaa wadada muddo ka shaqeynayo oo waxaan ku wadankaas oo dhata ka u kala yaqaano darawla shabaab $100 qata $140 $160 waa shidaalka marka la isku xisaabiyo adiga lacag $300 mala darawalka culinadiisa iyo kismaayo gudaheeda jagboontiya yaala iyo waxa markaas ku xisaabiyo $200 ilaa $100 $300 markaas hooyaa marka lacag isiisay ay xamar beledweyne ka imaaday xamar igu imaatay lacag bay siisay lacag way noqotay marka hooyo beledweyne u noqotay hooyo markii beledweyne u noqotay ba lacagtii anoo sidii wax haysto ba lacag $300 aan kunki mid ila soo walaalkay igu weyn asraad laakiin wali aan barnaamijyada intan isticmaalay aad igu arkinaha laakiin Facebook-ida aad hore u aragtay oo malinaya yarkaas salaad ba yahay markaas farxana markaas uu iga tago asagna beledweyne oo aaday laakiin salaad ba markaas yahay salaad ba markaa wuxuu yiri nin waarta lacag xagee u diraysaa war gaariga hadda doo soo baxay biri waa ila joogaa waay ay marka kuraasi sirrinta saran ku shaqaysanaya waa ilmaha uga taganaya diyan caafimaad dibadda helna waa kaas hadii kale ilmaha leeyahay wax malaya hay salaad lacagtii waxaan niri ma dirna new George aniga waxaan waa diraya lacagtii sax waa diray lacagtii saacada ka bacdi waa waxay soo baxdaan hadda aan bixiyay kaalinta shidalkan taaganahay waxay ka bacdiyaan waxay lambarka wacdi lama heli karo maamadii wacdi lambarka weligeeyba ma maqalcam lama heli karo maamadiina oo xasan salaado labadii lambar lama heli karo waxay ka bacdi wac lama heli karo salaad kirshan toonad buu ahaa aad iska jiray aniga laftiga xita shako waa galay namariya hormuud aadna waa baxnay hormuud tagnay hormuud waxay yiraahdeen lambar cusub bay ahaayeen waana dinsiin wala lacagtaasna waa tagtay ma soo celin karno ilaa amarkiis hormuud duusa garab ada ku haysanin waa ku dhamaatay lambarkii dambeeyay oo hal magac ay ku wada qoran yihiin bay yahay yar hormuud joogay maadeer aan nahay wuxuu yahay lambarka dambeynta oo isku hal magac ay ku qoran yihiin oo helay lambarkii uu wacay wala xanibada la saaray lacag markaas waxa ugu jirtay oo $300 ba markaas ku jirtay mataydi ba mutukalaama xanibad uu saaray shirkadii bay timid shirkadana ugu dhow lacag soo laga xiro lacagta hormuud xananta waaye damaanad la imaaw damaanad way la imaaweys yarkii baa wuxuu yiri lacagtii
waxaan ku celinayaa lambarkii laga diray oo lacagta aad ku dirtay aan ku celinayaa kaasaan haddana ka soo celinaya waay lambarkii lacagta ku celiyey kiibaa haddana lacagta igaga soo celiyey marka baaritaan dheer dib u sameynay baaritaan dheer baa dib u sameynay lacagtii waxay ay noqotay isla lacagtii oo soo helay yarkii Hormuud lacagta waxa uu yiri lambarkaasi ka soo baxday lambarkaasi aad sheegtay lambarkan maamada ku soo diray maamadana lambarkeedan kale ku dirsatay sidaasi saddexda lambar ay isku ogaayeen waa inay xiriirkoodana ku jiro waa adiga xiriirkeedina meesha uu soo galay sidaas markaan aniga lacagtii dib igu soo noqotay laakiin sidaas aan leeyahay dhacay saxadeeda qaliga marka waxa jirto dad waxa jiro dadka masaakiinta oo dadka la caawinayo dad waxa jiro kasii ganacsado ka faa'iida oo dhahaya dhowr qof oo kale waxaan arkay sidaan kale loo dhacay waan arkay oo social media ku jiro waa arkay adiga laftigiina waa aragteen baa umaleynaya marka inaad fiidiyoyada saan kala taashir garaysaan aad ummadda yani lambaradooda xitaa markaad aragtaan oo la soo dhigay inta wacdina tiraada qof haduu yiraahdo waxbaan ku hayaa lacag soo dirdo wiila iska ilaaliya inaad dhaxdiin aad ka wacyi geliyaan isku daya wana mahsantiin fiidiyowgan halaas ugu eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh